wax kasta oo la qabanayo waxay leeyihiin nidaam iyo hab loo maamulo oo loo qabto. hase ahaatee footballku waa mid ka mid ah waxyaalaha ugu shacbiyada badan, waxna lagu soo kordhiyo waxna laga dhimo. footballku waxa uu leeyahay xeerar badan oo kala duwan, wax la mamnuucay iyo wax la ogol yahay intaba. hase ahaatee waxaan kula wadaagi doonaa 5 sharci oo kubadda cagta lagu maamulo iyo waqtiyadii ay soo kala baxeen iyo sida ay u soo kala horeeyeen. 1. Hubset waxa uu soo baxay 1863 wixii ka horeeyay si walba oo balaayar kale kaaga horeeyo ama aad kaga soo horeyso haddii aad dhaliso waxay ahayd gool, taas oo ka dhigan wixii ka horeeyay in wax hubseed la yiraahdo aysan jiri jirin. 2. Corner waxa lagu soo kordhiyay 1872 taas oo ka dhigan wixii ka horeeyay kubadda cagta inaan wax corner la yiraahdo balaayar kastaba ha bixiyo kubadde in aysan jirin. 3. Albitare waxa kubadda cagta lagu soo kordhiyay 1878 taas oo ka dhigan wax garsoore ah inuusan jiri jirin ka horteed. 4. Penalty waxa lagu soo kordhiyay kubadda cagta 1970 taas oo ka dhigan wixii ka horeeyay in wax penalty ah aan kubadda la dhigi jirin, ciyaartuna lagu kala bixi jiray 90 minutka. 5. Yellow iyo red labaduba waxa la soo kordhiyay 1970 World Cup final ka dhacay Mexico. haddaba 5taas xeerba waxa lagu maamulaa kubadda cagta waqtiyadaas ayayna soo baxeen. dhammaantiin aad u mahadsantihiin. muuqaalkaygan hadduu ku soo gaaray waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto oo ka mid noqoto bahweynta aan halkan ku saaxiibnay. waxaan kugu soo gudbin doonaa Bila Sports dhammaan wixii kubadda cagta ku saabsan.